السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadlaynaa diabetes in pregnant. aynu ka hadlaynaa maanta qofka dumarka ah oo uurka leh isla markaana qabta cudurka macaanka kaad sukarowga lagu magacaabo ayay qabtaa. kaas ayuu weeyaan maanta waxaynu ka hadlaynaa. waxaa isweydiis mudan oo su'aalo badan ka imaadeen maxay qofka dumarka ah oo cudurka macaanka ah qabta ay ilmaha ooga soo dhacaan bilaha ugu horeeyaba. su-aasha labaadna waxa weeyaan maxay ilmaha uurka hooyada ay ugu koraan qofka dumarka ah markay qabto cudurka macaanka ah. insha allah bidmillaahi kariim waan idinkaga jawaabi doonaa. ilaahayna waan ka codsanayaa inuu noo wada fududeeyo. diabetes in pregnancy waxaa loo kala qaybiyaa laba method ayaa loo kala qaybiyaa laba category ayaa loo kala qaybiyaa. categoriga koowaad waxaa la dhahaa pre-gestational diabetes oo ah qofka dumarka ah horbayba u qabtay sokor then waxay yeelatay uur. categoriga labaadna waxaa la yiraahdaa gestational diabetes uurkaaba u keenay inay sokorta ku dhacdo. labadaas category ayaa loo kala qaybiyaa. categoriga koowaad oon idiin soo sheegay oo ahaa pre-gestational diabeteska oo ay dumarku hor u qabtay qofka dumarka ay hor u qabtay cudurka sokorowga badanaaba 10% weeyaan. markii qofka dumarka ah dumar haddii la isu keeno 10 dumar ah hal baa ka qabta oo noocaan noqota oo wada diabeteska 9na waxay noqdaan gestational diabeteska oo percentagekeedu uu yahay gestational diabeteska waxa weeyaan 90%. pre-gestational diabeteskana waxa weeyaan 10% 10% I mean. so muxuu keenaa pregnancy oo qabta cudurka sokorta ah maxay keentaa wuxuu keenaa fetal macrosomia keenaa. fetal macrosomia waa maxay waxa weeyaan su-aasha labaad oo idinkaga jawaabayo inuu cunugu uu koro caloosha hooyada uu ku koro xajmi ka weyn kii dabiiciga ahaa xajmi ka weyn ayuu korayaa cunugii caloosha hooyada ku korayaa. oo maxaa sababaya weeyaan waxaa sababaya hooyadii jirkeedii waxaa ku jira sokor badan ayaa ku jirta glucose badan ayaa ku jira dhiigeedii glucose badan ayaa ku jira. markii glucose badan jirka uu ku jiro insulin ma soo sii dayn karto hooyada. insulinta waxa weeyaan dheecaan xareeya storage geliya maxaa la dhahaa glucose jirkaaga ku jirta ma soo sii dayn karto oo waayo u soo sii dayn karin. waxaa sababaya 4 hormoon oo momentigaas waqtiga xaadirka ah ay hooyada ay dhiigeedu ku jiro. 4taas hormoon oo kala ah HBL growth hormone cortisol iyo progesterone. 4taas hormoon waxay diidayaan inay soo baxdo insulin ay maamada soo produce gareyso si ay u xareyso. hadday xareyn weyso uu dhiigeedii uu high level uu noqdo oo glucose ah waxay u gudbinaysaa via oo waxay ugu gudbinaysaa placentadii oo xarigii oo cunuga cuntada u geynayay oo xudunta ahaa ayay ugu gudbinaysaa. cunugii dhiigiisii wuxuu noqonayaa glucose-tiiba high noqonaysaa. maamadii high ahayd hadda babygii fatigii caloosha ku jiray cunugii caloosha ku jiray glucose-tiisii waxay noqonaysaa high. glucose cunuga caloosha ku jira glucose-tiisii dhiigiisii markuu noqdo high cunugii wuxuu soo sii daynayaa insulintuu soo sii daynayana waxay noqonaysaa high.
insulin badan ay soo sideynaysaa. Insulinta waa naqaanaa, waa dheecaan sokorta xareeya, sokortii ayuu jajabinayaa, ayuu bedelayaa. cunugii marka uu sokortii badneyd jirkiisa ku jirtay oo haddana insulin badan uu asagii uu soo sii daayo, waxaa dhacaysa laba shay. sokortii qaar buu xareynayaa, storage ku gelinaya, faad u bedelaya, cunugii faad u bedelayaa, baruur u bedelanayaa. baruur markuu bedesho cunugii xajmigiisii wuu korayaa. qaybta kalena growth hormonekiisa ay la shaqeyn doontaa, especially wadnaha iyo beerka. hormoon oo waxaa jiro dheecaan, waxaa jiro cunuga sahlaya inuu durbaba u weynaado. hormoonkii wuxuu u baahan yahay fuelkii bay noqonaysaa. markaas cunugii dhaqsuu korayaa, faadna wuu noqonayaa. marka cunugii xajmigii loogu talagalay ee normalka ah wuu ka badanayo, ka weynaanayaa. kaasi waxaa yidhaahdaa waa sababta keenta inuu cunuga uu ku weynaado uurka hooyada, taasoo la yiraahdo fetomacrosomia. fetomacrosomia haddaa maqashaan wax kale ma aha, waa cunugii uurka hooyada ku jiray oo weynaaday waaye. labadan kasoo jawaaba hadda waxaa waaye inuu first trimesterka 8 wiiga ugu horeysa inay ilmaha kasoo dhacaan, markay tahay pregestationalka oo ay tahay maamadii hor u qabtay sokorta, inay keeni karto inay ilmihii kasoo dhacaan oo ay asqaad noqdaan kasoo dhacaan. midda labaadna waxaa weeye cunuga koritaankiisii, sababta keenta waynu aragnay. hadda maxay noqon kartaa, damage muxuu ka gaari karaa, complicationka maxay noqonaysaa? waxay defect u gaarsiinaysaa sida horba aan u naqaanay oon markii aan diabetiska aan ka hadlay aan ooga soo hadlay. dhaawac waxay u gaarsiinaysaa kelyahaaga. waa filtrationka markuu baxayo oo meesha lagu, sida Soomaalida dhahdo cudurka kaadi macaanka, kaadida intay ka imaataa waa kelyaha. mees ayay waxay gaaraysa defecta gaarayo. waxaa kaloo gaarayo faasayaashii dhiiggii xididadii qaadayo oo qayb gadaalo oo isha oo la dhaho retinka gaarayo, damage ayay gaarsiinaysaa. sidee lagu garan karaa maamada oo sokorta qabta? waxaa la sameeyaa screen test, glucose test yaa la sameeyaa. goormee la sameeyaa weeyaan? waxaa la sameeyaa 26 week ilaa iyo 28 week markii hooyada uur leedahay ayaa screenkaas la mariyaa. sidee lagu daaweeyaa? 2 nooc. diets waa la dhihi karaa, dhakhaatiirtu way dhahaan, oo cuntadeeda inay kontroosho. midda kale waxaa waaye in insulin, labadaba waa lagu daaweeyaa. hooyadii ahayd maxaa la dhahayay sokortoodu qabtay ama uurka ku yeelatay, markii ay dhasho cunugii 6 bilood kadib, 6 usbuuc kadib, 6 usbuuc kadib waxaa la marinayaa test yaa la marinayaa oo glucose-teedii ah ayaa mar labaad la marinayaa oo la hubsanayo inuu yacni heerka levelka oo sokorteeda intuu la egyahay ayaa la hubsanayaa. fadlan haddaa qabtid cudur macaanka oo aad uurna yeelatay ama isku tuhunsan tahay inaad uur leedahay, u tag dhakhtarkaaga, kagana hadal oo waxaad dhahdaa uur baan leeyahay, sokorna hor ayaan u qabay. soo dhakhtarkaaga waa inuu ku ogaadaa. insha allah bismillaahi kariim, caafimaad ayaan idin rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.